ku soo dhowaada sheeko malawaal ah oo sawir ka bixinaysa sida ay u ekeed noloshii hore ee dadku ul iyo diir ka ahaayeen, mashaakilkuna sida maanta uu ka roonaa. waayo ila xasuuso ee ka bogasho wacan. Waxaan shalay tagnay aniga iyo asxaabtayda suuqa bakaaraha. Gaari caasi ayaan ka soo qabsannay isgoyska Siinay. maadaama gaariga uu buuxay, wuxuu kirishbooyga nagu qalqaaliyey inuu qiimo dhimis noo samaynayo oo aan min 1,000 shilin iska bixinno, gaarigana aan dhinacyada ka qabsanno. Sidii ayaana ku raacnay. daqiiqado kadib ayaan suuqa tagnay. Carwo istaag ayaan dhowr shay ka iibsanay, waxaana u gudubnay Cabdalla Shideeye oo taleefan iga halaysnaa la iigu soo cilad bixiyey. Intaanan suuqa ka bixin ayaan aragnay dhowr qofood oo nin makarafoon wata hareero taagan. Waa idaacadda wareegto ayuu mid saaxiibaday ka mid ah la soo booday. Codad kala duwan ayuu matalayaa. Mar wuxuu iska dhigayaa wariyayaal ay Aamino Muuse ka mid tahay, marna wuxuu iska dhigayaa hogaamiye kooxeedyo magaalada laga yaqaano. Cabaar kadib yar nala socday baa naga codsaday inaan u raacno xaafadda furayaasha oo ay habaryartii deganeed. Wuxuu doonayay inuu ka soo qaado oodkac ama muuqmad loogu talagalay in lagu baaniyo walaalkii ka weyn oo naadiga SITT Daala daafac uga dheela, oo 2 maalmood ka hor ku soo jabay jiirooni ka socday garoonka jaamacadaha. maadaama qarashkii aan haysanay aan labis ku iibsanay, waxaan isku raacnay inaan u lugayno furayaasha oo masaafo aan sidaa u sii dheereen inoo jirtay. Jawigu wuxuu ahaa mid aad u kulul. Cabaar markaan sii soconno, annagoo marayna xaafadda Laba Dhagax, ayaa maamo iyo gabar la socotay waxay kuleetiga ku dhageen wiil nala socday. Waryaa Cabdiraxmaan, maxaad halkan ka qabanaysaa? Iskuulkii miyaad u soo gembisay? Maya habar yar, maanta waa fasax, ayuu ugu jawaabay. Maamadii way rumaysan weyda hadalkiisa, balse markii ay waalidkiisa wacday ayay xaqiiqsatay warkiisa. Kadib Cabdiraxmaan ayaa iskeen baray habaryartii iyo gabadheeda oo si weji furan aan isku barannay. Markaan xoogaa sheeko kaftan la isdhaafsannay ayaan ismacsalaameynay. In yar kadib ayuu Cabdiraxmaan ii sheegay in gabadha habaryartii dhashay ay weydiisay taleefankayga, isagana uu siiyey. Waxay ahayd akhbaar i farxad gelisay, ileen aniga laftayda waan ka helay dabeecaddeeda iyo habdhaqankeeda intii yareed ee aan wada taagnayn. Annagoo dhex sii lugaynayna ayaan aragnay ardayda iskuulka Alcimra Baranjawan Laba Dhagax oo tartan saxaafadeed ku qabsanaya iskuulka bannaankiisa. Dhagahayga waxaa ku soo dhacayay heesay ereyadeyda ka mid ahaayeen: alif la kor dhabay, alif la hoos dhabay, alif la goday. Waxaan kaloo ka aqoonsaday Ustaad Maxamed Xuseen New York oo tartanka garsoore ka ahaa. Xoogaa markaan daawanay ayaan ka sii dhaqaaqnay. Markii aan hilibkii soo qaadnay oo 2 jiira aan ka soo gudubnay, waxaan ku soo dhacnay koox ciyaal ah oo dhufays u yaalla waddo ku taalla intaan la gaarin iskuulka Maxamuud Xarbi. Kuwa aan xarash hore isku hayna ayaan ka dhex aqoonsanay, isla markiiba cagahan wax ka daynay, waxayna naga reebteen wiilkii aan dartiis mashaqadan ugu soo dhacnay. Kadib inta fiigeeyeen ama xirxireen ayay maxkamad xaafadeed saareen. Bakhti nasiib ayay u qabteen oo dhowr nambar ayay mid ka dooro dhaheen, waxaana u soo baxday in 50 jeer la uleeyo. Saacado kadib ayuu xaafaddii noogu yimid isagoo leh, waxay igeeyeen isgoyska Xarriyaala agtiisa. 20 ulood markii la imarsiinayo ayaa israsaasayn ka bilaabatay aagga isgoyska, waana la kala cararay. Sidaas ayaana ku soo badbaaday, alxamdulillaah. qaybtan saaxiibayaal halkaa ha inoo joogto. Waxaan filayaa inaad ka hesheen, bal inoo soo qor waxyaabaha kaa yaabiya ama aad ka heshay ee sheekada ku xusan. xasuusi asxaabta kale si ay iyagana waayo u xasuustaan oo muuqaalka inala sheer gareeya.